war hambaliyo halkan waxaan ugu hambaliyeynayaa bulshooyinka reer koonfur galbeed oo madaxweynahooda go'aanka ugu fiicnaa qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa dowladda kuwait waxa uu la saxiixday 25 sano oo loogu dhisayo dekedda Baraawe iyo hoteelo dhul ku fadhiya 200 kilomitir dhulkaas oo lagu dhisayo hoteelo adduun dabaqyo qaamteeda aad baan ugu hambalyeynay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ma la dhihi karaa shaxdii buu fahmay meeshii muqdisho ahayd inaan waxba ka soo socon Soomaalida kalena nin walba deegaankiisa dhisanayo nin walba oo maxaan ku rahaa horumarkiisa ka shaqeynayo waa aragtaa Puntland horumarada ka socda dekedaha adduunka waxaan deeada reer Puntland baa sameystay isagana wuxuu go'aan ku qaatay sidaas si lamid ah inuu sameysto inuu wixiisa habaysto oo isiraado hadhow haddii nin walba gobolkiisa lagu noqonaya waa arkaaba sheekada si u socota maadaama Soomaalida wax kaliya ay wadaagi jirtay niika ahayd niikadina hadda leeyahayba muqdisho laguma niikin karo ma garad meel Soomaaliyeed caasimad Soomaaliyeed dadka qaarna leeyahay kuma niikin kartaan dadka qaarna ku niikay leeyahay hadda waxa oo yaalaba iska yarbaba oo loogu tago oo meesha la dhihi karo waa loo aadaya ma jirto wixii ugu liitay bal u heshin waay oo ah in la heeso in la niikiyo wax ugu liito bilaadan uu sameeyo intiiba heshiis lagu noqon waay wax kale lagu heshin maayo marka aad baan u bogaadinay madaxweyne go'aankii ugu fiicnaabad qaadatay dekedan sida la sheegayo xitaa waxay wax gaarsiin kartaa Kenya Congo wadamada jaarka ah kale Afrikadan bay wax gaarsiin kartaa baa la yiri waana ta Soomaaliya oo dhan waxbay gaarsiin kartaa waxaan kale ku raacinaya dadka UNDP-yada meel dhaha dadkan oo qaxootiyaasha iyo barakacayaasha qaxootiyan dhina barakacayaasha waxaad ku tiraada ku noqda beerihiina wax beerta wax la soo baxde dadka markay wax beertaan ay waxna bartaan bay horumar gaaraan wallahi billahi oo tallaay reer koonfur galbeed waxna beertaan waxna bartaan Soomaaliya dhan bay maamul karaan wax gaarsiin karaan waxaad ku tiraada buushashka meesha ku dhisan bay dhaba iyo nawaaxigeeda waxaad tiraada noqda beeriina ku noqda idinka beer badan ma jirtee beeriina ku noqda beeraha fasha wax soo saar sameeya hal la maalgeliyo nimanka kale oo argixisada al-shabaabna ka qabo nin walba tuuladiisa u dir nin walba waxaad ku tiraada tuulada soo xoreyso hay'ado oo waxa la idin keenayo wax barasho wax walba la idin keenayo nin walba deegaanka xoreyso ku kuwa beedhabo hilka u iimaanay waxaad ku tiraada tuuladaad ka soo jeeda hebel tuulada orod tag soo xoreyso al-shabaab ka soo xoreyso aniga wax i weydiin marka xili weydii gudoomiyaha waxa laga dhigayaa deegaankaas horumarkeeda ka shaqeynaysa sida hadda gudoomiyaha awdiinle deegaanka awdiinle horumar fiican badan buu gaarsiiyay iskuul uu dhisay madaxtooyadu taa dhisay ninka saldhigyo buu dhisay saas horumarkeeda saas uu kala socda nin walba saayeel ma garad aad baan kuugu hambalyeynaya hawsha fiican aad qabatay oo markii ugu fiicneed oo hawl qabatid waxa la yiri labada cad lugugu darmiyay ahayd ma garad cabdicasiis 8 sano 10 kale lugugu dir aad baa idin salaamay oo madaxweynaha la taageero